Hong Kong ama sida rasmiga ah ee la yiraahdo ee Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Hong Kong waa mid ka mid ah labada mandiqad ee leh maamulka u gaarka ah isla markaana China ka tirsan. Waxay ku caan tahay dhismayaasha dhaadheer iyo dekedeeda waasica ah, waxaana ku nool in ka badan 7 milyan. Dadka Hong Kong ayaana ah kuwa inta badan haysta diimaha dhaqanka ee Shiinaha, waxaana ka jirta xorriyad diin oo qof walba diinta uu rabo ayuu qaadan karaa. waxayna ka mid yihiin bulshada Hong Kong kuwa ugu cimriga dheer caalamka, wuxuuna celcelis ahaan cimriga ragga Hong Kong yahay 79 sano halka dumarkuna yihiin 84 sano. shantii sano ee ugu dambeysay tirada dadka Hong Kong boqolkiiba 0.6 ayay kor u kacisay, waxayna ka mid tahay meelaha ay dadku aad ugu badan yihiin maadaama badkeedu uu gaarayo 1106 kilomitir isku wareega oo kaliya. waxaana ku badan magaaladan dhismayaasha dhulka hoostiisa laga dhiso maadaama dadku ku badan yihiin dhulkuna aad u yar yahay. sidoo kale magaaladan waa midda ugu badan ee leh dhismayaasha aadka u dhaadheer ama skyscraperska, waxaana laga helaa 303 oo dhismayaasha aadka u dhaadheer ah. dhismaha ugu dheer ee Hong Kongna waxaa lagu magacaabaa International Commerce Center ama ICC, waxaana la furay 2010kii, waana dhismo ganacsi oo ay tiigsadaan ganacsatada. dhammaadkii casriyadii dhexe waxay ahayd tuulo yar oo ay ku nool yihiin kalluumaysato muhiimad weynna aan lahayn. waxay ku dhacday gacanta Ingiriiska intii uu socday dagaalkii Opium 1839 ilaa 1842. Ingiriiska ayaana dagaalkan kaga guuleystay qoyskii ama boqortooyadii Tashing ee dhulka Shiinaha ka talinaysay, waxayna Tashing isaga baxday Hong Kong. laakiin bartamihii qarnigii 20aad waxaa Hong Kong qabsatay Japan, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii badda degan ama Pacific Ocean. laakiin Ingiriiska waa uu soo ceshtay Hong Kong kadib dagaalka, waxayna Hong Kong noqotay mid hoos tagta Ingiriiska tan iyo 1997. sanadkan ayuuna Ingiriiska ku wareejiyay Shiinaha. intii ay ku hoos jirtay xukunkii Ingiriiska waxay haysatay xorriyad dhaqaale, faragelin aad u kooban ayuuna la kulmayay dhaqaalaheeda. sidoo kale dhaqankii ka jiray Hong Kong wax badan ayaa iska bedelay, waxaana magaaladan fudud inaad alaaba kula kulanto qof ku hadli kara luqadda Ingiriiska. taasina waa mid ay aad uga duwan tahay Shiinaha oo idil, oo Ingiriiskii ayaa kaga tagay dhaqan, lacag iyo luqad ka duwan midda Shiinaha. labada luqad ee rasmiga ah ee Hong Kongna waa English iyo Chinese, waana taas sababta loogu tilmaamo inay tahay midda kulmisa galbeedka iyo bariga. laakiin dadka magaaladan boqolkiiba 92 waa Shiinees, waxaana sidoo kale ku nool dad badan oo kasoo kala jeedaan dalalka kala ah Philippines, Indonesia, India iyo Nepal. Hong Kong ilaa maanta kama aysan suulin inay waxyaabaha qaar u madax banaanaato, waxayna leedahay maamul u gaar ah oo dimuqraadiya isla markaana aan ictiraafaysan, waxaana ka reeban oo kaliya maamulka Hong Kong inuu qabto shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha iyo wasaaradda difaaca ee Shiinaha. labadaasi wasaaradood wixii ka soo haro oo idilna waa ay u madax bannaan tahay Hong Kong. marka la eego luqadda Chinese-ka, waxaa magaca Hong Kong loola jeedaa dekedda udgoon maadaama laga dhoofin jiray fooxa. waxay dhacdaa meel istiraatiiji ah oo ah inta u dhaxaysa Shiinaha iyo Japan iyo koonfurta bari ee Aasiya, taasoo ka dhigtay xarun ganacsi iyo mid safar. waxaana lacagta Hong Kong la yiraahdaa Hong Kong dollar, waana lacagta 8aad marka la eego lacagaha ugu badan ee lagu ganacsado ama wareega. waxayna magaaladan labadii sano ee u dambeysay ay noqotay magaalada ugu qaalisan caalamka ee ajaanibtu ku noolaadaan. sanad walba inta u dhaxaysa Abriil iyo May waxaa jasiiradda ka tirsan Hong Kong ee Zhongzhou lagu qabtaa dabaaldeg cunto oo lagu magacaabo dabaaldegga Ban, waxayna aaminsan yihiin maharajaankan inuu ka difaacayo jasiiradda ree aakhiraadka gaajaysan. waxay Hong Kong caan ku tahay cuntooyinka kala duwan iyo maqaayadaha aadka ugu badan, waxaana la sheegaa marka la eego maqaayadaha ka furan Hong Kong in 600 ee qofba ay ku soo aadayso hal maqaayad. waxaana si gaar ah Hong Kong ugu badan maqaayadaha kor ka furan, waxayna la gaar yihiin maqaayadaha kor ka furan raashin raqiis ah oo inta badan bulshadu awoodo, waxaana laga cunaa cunto la yiraahdo Dai Bai Tong. boqolkiiba 90 waxyaabaha loo dhoofiyo Hong Kong waa cunto. dhulka wax lagu beero ee Hong Kong oo aad u yar awgeed, balse wax soo saarka ganacsi ee Hong Kong ayaa ah mid aad u sareeya, waana magaalada labaad ee bilyaneerada ugu badan ay ku nool yihiin, halka New York tahay midda koowaad. bulshada Hong Kong waa kuwa aad u jecel xayawaanka eyga,
waxaana goob walba oo Hong Kong ah inta badan lagu arkaa dad wata ay, waxayna ayda ula macaamilaan sida qof ka tirsan qoyska. Hong Kong waa hoyga kung fu-ga iyo difaaca nafta, waxaana ka soo jeedaan aktarada kala ah Bruce Lee iyo Jackie Chan.